waxay tiri miskiintan markii hore jin baa ii uureeyey oo mataanaha caloosha aan ku sido jin i xoogay ayuu ka imaaday laakiin xaqiiqadu waxay noqotay arrintaasi mid khilaafsan gabadhan waxaa la arkay iyadoo uur leh waayii hore waa qarsan jirtay laakiin maalinba maalinta ka dambaysa caloosheeda waa soo weynaanaysay marka uurkeedii bishii 8aad uu marayay ayaa la weydiiyey waxaa lagu yidhi waxa kan maxay yihiin maxaase ku haleelay waayo gabadha lama qabin oo nin ma lahayn xaggeed ka keentay ceebta tan waxay tiri jin ayaa i kufsaday oo xoogay inay iska difaacana waa kari waaye dadkii hadalkaa waa rumaysteen oo wax jira oo xaqiiqa ah inuu yahay ayay hadalkan u qaateen waxayna u keeneen kuwo badan oo faalolowye ah wax tiltilmaama si mushkiladan ama dhibaatadan ay u xalliyaan laakiin waxba lagama faa'iidin nin caalim oo meeshaasi qisadu ka dhacday ku noolaa ayaa arrintii maqlay gabadhii ayuu imaaday wuxuu ku yidhi uurka kan yaa iska leh markaasay tiri jin ayaa i kufsaday oo i xoogay inaan iska difaacana waa awoodi kari waaye marka jinkaas ayaa igu xadgudbay ayay tiri caalimkii ugu jawaabtay gabadhaas ninkii caalimka madaxu ruuxay wuxuu yidhi maya ma dhici karto jinsi ahaan uguma xadgudbi karaan ugumana xoogi karaan jinku insaanka ee waxa jira noo sheeg taa kaa rumaysan mayne arrintaas ilaahay awood ooma siin jinka inay insaanka ku sameeyaane ninkaa shiikha hadalkiibuu gabadha ku soo celceliyey awood buuna saaray ilaa ayay tiri markii dambe maya waa runta ee jin ma ahan waxa ii uureeyey ayadoo si daran u ooyeysa ayaa waxay tiri uurkan aabbahay ayaa ii yeelay aabbahay ayaa ii xoogay bay tiri isagaana uurkan ii yeelay ninkii shiikha booliska ayuu wacay oo arrintii u sheegay aabbihiina waa la soo qabtay qisadanna waa qiso dhacday oo xaqiiqa ah oo aabbahaas dembiilaha uu gabadhiisa ku sameeyey waxayna dhacday 1977 waxaana qisadaas soo tabiyey sheekhii la oran jiray cabdilxamiid alkishki caleyh raxmatullah